banaanbax ay si weyn u soo agaasimay maamulka dowladda hoose ee magaalada Garowe ayaa maanta ka dhacday magaalada Garowe caasimadda Puntland. Dibadbaxan ayaa waxaa lagu soo horjeeday maamulka sida sharci darrada ah ee lagu dhisayo gobolada dhexe ee dalka. Dibadbaxan oo mid ballaaran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka, mas'uuliyiinta dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreynna waxaa ka hadlay dibadbaxa duqa degmada Garowe Axmed Saciid Geele isagoo sheegay mar walba in laga dhiso Soomaaliya Puntland. mar walba waxaa laga dhisay Soomaali Puntland. waxaan moodaa mar walba inaanu niraano Puntland waa hooyadii Soomaaliyeed ama aabbihii Soomaaliyeed. turjumaadaas weyn ama waqtiga badan aanu gelinnay waqtigii markii laga soo bilaabo xornimadii ilaa iyo hadda waxaanu raadinaynay Soomaali iyo cadaaladdeed. waxaad la socotaan gobolada dhexe waxa ka socda maanta. jawaari oo runtii ahaa guddoomiyihii baarlamaanka maanta uma sifaysna, mana aha guddoomiye baarlamaan, mana qalmo. waxaana filayaa oo aan idiin sheegayaa fariin meeshaan u dirayaa xubnaha Puntland oo baarlamaanka Soomaaliya ku jira ma aragno mana maqalno inay arrintaa ka dhiidhiyaan. waxaan marka fariin u farayaa inay kama duwana kuwa kale xuquuqdooda u ordayo dhulkooda u ordaye adoo dhulkaagii lala wareegayo inaad xamar hoteella degantiin kama yeelayno. waxaan u sheegaynaa shacabkiinnii aad matalayseen oo aad u joogteen dowladda dhexe inay maanta inta ku dhan yihiin, shucuurtoodana aad u jeedaan. waxay doonayaan xildhibaannada Puntland ka soo jeeda oo federaalka jooga inaannu aragno hadday wax ka qaban waayaan inay go'aanka ula soo noqdaan dowladdooda Puntland. sidoo kale waxaa ka hadlay dibadbaxa gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdullaahi Saciid Aw Axmed isagoona sheegay in cadaadad laga dhisay waxaan dastuuri ahayn. cadaadad maxaa laga dhisay? waxaa laga dhisay waxaan dastuuri ahayn oo aan sharci ahayn oo dan gaara laga leeyahay. annagu ma eedaynayno shacabka gobolada dhexe, shacabka reer galgaduud ma eedaynayno, oo shacabka reer galmudug ma eedaynayno, oo waanu ognahay in la afduubay ay afduuban yihiin, oo danahoodii laga kaxeeyey, oo wixii ay xaqa u lahaayeen laga qaaday, oo khasab loogu taliyey waanu ognahay. aad baanu u garanaynaa weyne waanu ka xunnahay. shacabka ha loo daayo aragtidooda iyo doorashadooda iyo rabitaankooda. kooxda xasan sheekh hogaaminayo oo jawaari ku jiro oo Nicholas hadda uu ku biiray hay soo baxaan Soomaalida waxa ay dadka ay isugu dhiibayaan. waxaanu arkaynaa arrintaan ay tahay dagaal sokeeye oo cusub oo hadda la bilaabay. soo saas maaha, dagaal sokeeye oo cusub oo hadda la bilaabay weeye. annaga Soomaalida walaalaha ayaa dagaalkeeda ma rabno oo dhiiggooda ma doonayno oo dhib lama rabno, laakiin haddii mala ku kalifo diyaar baanuna. soo saas maaha. waxaanu leenahay oo Soomaali u soo jeedinayna ugu dambayntii oo ummadda Soomaaliya lagu baaqaynaa waxa nimankaa guurka ay meesha ka waraaqayaan xaaraan weeye. aan ka soo wada horjeedsanno. waxaan taageersannahay dolasha ahlusunna waljamaaca oo dhuusamareeb baan taageersannahay. taasaan taageeraynaa wixii ka soo baxa inay ummadda Soomaaliyeed gobollada degan ku tashato oo iyagu ra'yigooda u madax bannaanaadaan. waa ogtihiin waxa weeye wixii cadaada laga waday ma ahayn wax shacabku wado, mana ahayn wax Soomaaliya wado. guruub yar oo hawl leh dan leh oo adar xasan sheekh hogaaminayo ayay ahayd. marka ma ogolin arrintaa miyaynu ogolahay? waa diidnay yeelna mayno. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaanu ka rajaynayaa hadda iyo kabacdina ra'yigaas. dibadbaxan ayaa kusoo beegmayay xilli xuduud uu yeelan doono maamulka loo dhisayo gobolada dhexe ee Soomaaliya lagu sheegay qaybo ka mid ah gobolka Nugaal. Shamaaka Abduqaadir Jaamac, Shamaaka Yare,
TV-ga caalamiga Som News Garowe.